السلام عليكم ورحمة الله. دمان أصحاب جناك منير مرسكو حرام وصاحبك منير سو دوادا مقال عصب سو دوادا waxaan rajeynaa inaan nabad qabtaan alxamdulilah ana sidoo kale waa nabad qabaa maanta muuqaalkan muuqaalka hore ka duwan yahay maanta waxaan ka hadli doonaa hadduu ilaahay yiraahdo maadaama maanta ay jumcad tahay horta jumco wanaagsan jumcada waa isbuuca maalinta ugu yani maalinta la fasaxan yahay waa isbuuca ciidda isbuuceeda waay ciidul isbuuc waay saas darteed dadka muslimiinta ah badan waxay ugu faa'iideystaan nasasho oo shaqadii iyo waxbarashadii kulli waa laga nastaa oo xaafadaha la iska jooga ama booqasho iyo waa la isba booqdaa sidoo kale maalintaas jumca ah waxyaabo sunnaha jiraan oo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam loogu daynayo in sida in jumcada salaada lagu tukado masaajidka jamaacada sidoo kale khudbada la dhageysto sidoo kale maalintaas in la aqriyo ayaa sunna ah suuratul kahfi sidoo kale waxaa jirto fursad weyn oo maalinta jumcaha in looga faa'iideysto ay muhiim tahay fursadaas mar walba ay fiican tahay ku fiican tahay in la sameeyo laakiin maalinta jumcaha waxa wanaagsan in qofka nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ku saliyo oo saliga nabiga uu badiyo maxaa yeelay maalinta jumcaha hadii aad nabiga ku saliso alayhi salatu wasallam waxa loo bandhigayaa nabiga saligaaga oo yani shaashada ayuu ka arkay nabiga sallallahu alayhi wasallam oo markaa uu ku farxayaa wuxuu leeyahay hebel oo ummadeeda kamid ah maanta igu saliyay marka saliga marka sidoo kale wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan iyo fadli badan oo leeyahay maanta waxaan sheegi doonaa saddex faa'iido oo nabiga ku salintiisa sallallahu alayhi wasallam laga faa'iidayo oo laga helayo kow waxaad ka mid noqonaysaa ama waxaad la mid noqonaysaa malaa'igta maxaa yeelay malaa'igta waxay ku saliyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam midda labaad nabiga sallallahu alayhi wasallam hadaa ku saliso waxaad qaadatay amarkii ilaahay oo ahaa yaa ayuha alladhiina aamanuu salluu calayhi wa sallimuu tasliima mu'miniinta nabiga ku saliya oo salaama marka amarkii ilaahay hadaa qaadatidna ajar badan aad ka helaysaa saliga akhrintiisana ajar kale waa faa'iido saddexaad oo aan muuqaalkan ku soo sheegi doono midda ugu dambeysana ah waa hadii aad nabiga sallallahu alayhi wasallam hal mar ku saliso 10 darajo helaysaa meeshii la reebay hal ajar inaad hesho 10 darajo ama 10 ajar helaysaa oo nabiga ayaa saligiisa ayaa faa'iidaas marka ku heshay ama ilaahay ayaa sidoo kale maadaama ilaahay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ku salisay adna ilaahay ayaa kugu salinayo oo nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay man salla alayhi salatan waahida sallallahu alayhi 10 qofkii hal mar igu saliya ilaahay ayaa 10 mar ku salinayo saligana sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku dhameystirmaa wuxuu Soomaali ahaan marka la fasiro waxay noqonaysaa naxariis nabadgeliyo korkiisa ahaatee sallallahu alayhi wasallam marka insha Allah muuqaalkeena meeshan ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan share garay asxaabtaada u share garay maanta maadaama ay jumcad tahay si ay ugu faa'iideystaan muuqaalkan waxa laga yaabaa waxyaabo kale inay ku mashquulsan yihiin share gareynta free way haddii aad muuqaalka u share gareyso waxaad helaysaa ajarka uu qofkaas ka faa'iido yani inta faa'iido uu ka helo muuqaalka in lamida ayaad adigana helaysaa asxaabtaada u share garay free way ayidin Allah janee waa idin salaama subscribe haddii aad ku cusub tahay like muuqaalka haddii aad ka heshay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh jumco wanaagsan. I've been waiting.